weyn way noo tahay waa idin baraarujinayaa waa idin dhiirigelinayaa walaalahayga tihiin garbahayga tihiin maanta haday wax isoo gaaraan dadka oo macnaha isoo garb istaagi lahaa ama dhiigi ii shubi lahaa idinka waaye in macnaha wadanka meesha u socdo meel kasii sareysa si gaarsiino magacaygu waa Samiir Nuuruddin Nazaar 23 jir ahay waxaan ka imaaday dalka Norway soo barbaaray haddana waxaa ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed weligay waa jeclaan ciidanka inaan ku biiro oo yacni ciidan noqdo qof askari ah oo shaqaysan markaas darees wadato waagaan yaraa markaas xataa laakiin maslihin Soomaaliya inta ciidanka Soomaaliyeed ku biiraysaa markaad dareeska xirto waxaad dareemaa mas'uuliyad weyn waxaad dareemaa awood iyo dhiiranaan iyo sharaf wax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah ku soo toosay oo ardayda iskuulada u socoto suuqa furan yahay gawaarida iyo ganacsiga si nidaam ah u socdaan farxadan la qiyaasi karna aad wax kasta waa qaban karaan dumarka wax walba waa qaban karaan dhagax qaadaade ahaaleed iyo dabaq la jibinaade ahaaleed iyo mid la dhisaade ahaaleed iyo qori la qaadaade ahaaleed laf dhabarka wadankaaniitin waa dumarka tirada waa soo ziyaadaysaa oo ciidanka booliska dumarka ah xataa aan dhahno sektarada oo yacni security-ga ah iyo xataa shaqaalaha dowladda markaas dhalinyarada oo shacabka Soomaaliyeed ee arkaan markaas inaa shaqeynayo oo darees aawato way weydiiyaan qaabkay ugu soo biiri lahaayeen ciidanka iyo yacni wadaday mari lahaayeen anna waxaan ka caawin karo waa ka caawiyaa markaas ilan waajib saaran waayo